السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رندا عبدو أيان سعيد حمر قول سولو هذا بيانفينيو سولو هذا وحن كهضلينا شاينا دبي عبد الرحمن بوري اسماعيل عمر قيلي رلابا كهضلايا مركز سولو هذا شهر قرية و très important. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce soir, nous sommes le 2 janvier 2020 et c'est une nouvelle année qui démarre, qui commence, et j'en profite pour une deuxième fois d'envoyer mes meilleurs vœux à mes chers compatriotes de Djibouti, ceux qui vivent à l'intérieur de la prison à ciel ouvert Djibouti. À vous tous, je vous dis bonne année, bonne santé, et que Dieu vous protège. Et que Dieu vous protège. C'est très important. Ceux qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Ceux qui sont en difficulté, que Dieu puisse les secourir. Inch'Allah. À vous tous, et ainsi à nos autres frères et sœurs de la diaspora djiboutienne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse parce que je suis un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave. On va continuer parce que le sujet est assez intéressant. Et ce soir, les informations que je vais vous donner, et surtout le sujet que je vais débattre ici,
Il concerne tout particulièrement les négociations ou les plans qui ont été mis en place par IOG, Abdurrahman Boré, certaines puissances extérieures et y compris Dubai World, pour éventuellement pouvoir ramener Dubaï au port de Djibouti. C'est une décision qui est vraiment pratiquement assez grave pour ceux qui peuvent comprendre la réalité des choses. C'est très important. Ceux qui ne comprennent pas, bah, écoutez, bon, ils vont toujours continuer à danser, à manger le cat, à faire la java, mais ils ne savent pas que, particulièrement, nous sommes assis sur une poudrière. Cette poudrière, elle a été montée de toutes pièces par Ismaël Merguele et son régime. Je vais vous expliquer comment les choses se passent et surtout les négociations qui se font derrière l'écran, sous la table, et qui actuellement, mais vraiment, prennent une dimension, mais vraiment assez terrible pour le peuple de Djibouti. C'est très important. Et c'est ça que je vais éventuellement vous débattre avec vous, éventuellement vous donner les informations que j'ai, et surtout la gravité des choses pour celui ou celles qui peuvent comprendre dans la situation où effectivement ce régime, Ismaël Merguele, nous a placés. Et ça, c'est très important de pouvoir savoir et qu'on puisse pas dire après, nous ne le savions pas, on ne connaissait pas, c'est Ismaël Merguele qui a fait le coup. Non, tout ça c'est du cinéma, c'est terminé. Alors mes chers compatriotes, pour cette nouvelle année qui commence, vraiment, vraiment, elle commence assez dure. Assez dure. Et j'espère de tout mon cœur que les informations que je vous donne, les analyses que je fais sur la situation de Djibouti et la politique de ce régime qui nous amène droit au mur, espérant qu'il y a une étoile ou une perche qui sera lancée au peuple de Djibouti. Inch'Allah. Voilà. Si vous permettez, je vais expliquer ce topic ou ce dossier assez brûlant en somalien. Je le dis en somalien, c'est vrai que certains de mes compatriotes djiboutiens ne parlent pas le somalien, mais c'est pas grave. Ceux qui parlent et ceux qui savent pourront le transmettre et le traduire. Mais c'est très important que je puisse faire passer ce message directement au peuple, à mes frères et sœurs somaliens, Issa de Djibouti, de l'Éthiopie ou de la Somalie, s'il vous plaît. Voilà. walaalayaal marka hore iyo marka labaad soo dhowaada mar labaad waxaan leeyahay sanad wacan sanad khayr leh ayaan nii rajeynaya dhammaantiin oo dhanba ummadda reer Djibouti inta dalka ku jirta ee xabsiga ibaabada maaragtay ballaqan cirkun la eegaayo ku jirta ilaahay waxaan uga baryayaa maaragtay inuu ilaahay xabsigaa inuu ka furo oo khayr uu ilaahay ugu dabaalo inta bugta ilaahay u daweeyo oo caafimaadka ugu soo celiyo inta dhimatayna ilaahay u naxariisto walaalayaal taariikhda maanta waa 2 January 2020 waxaa halkan nila hadlaya waa walaalkiin saaxiibkiin in adeerkiin wiilkaad abtiga u tihiin wiilkaad adeerka u tihiin Suldaan Cabdalla Dabarkaale Axmed waxaan maanta ka hadlayaa halkan oon ummadda reer Djibouti aan doonaya inay si fiican ii dhegeystaan ummaddan madaragtay aad moodid in maskaxdii laga qaaday in qalbigii laga saaray ee arkaysa waxa soo socda ee garanaysa ee haddana aamusan waa wax cajiib leh adduunka kale ummaduhu waxay ku kacaan oy dowladda ay madaragtay ay ku bedelaan furankeebaa
toban santim lagu daray lacagtii 10 santim halkaabuu ka dhacaa maaragtay afgembiga maaragtay iyo mudaharaadka dowladda lagaga soo horjeedo kuwan aan ka dhalanay ee reer Jabuuti waa su'aal la isweydiinayo meesha ma reer Jabuuti baa jooga mise ajaanib baa ku nool aan dalka u dhalan aan dalka ka naxayn aan ummadda ka naxayn waad arkaysiin maanta ummaddu inay gaajo u dhimanayso inay dhakhtar la'aan u dhimanayaan dawo la'aan u dhimanayaan cudurradu nuuc walba uu baabi'iyey oo maalin walba la ooyayaa oo maalin walba la soo aasayaa maalin walba maaragtay yaa allah yaa allah yaa allah la baroranayo war ilaahay waa caadil laakiin ilaahay maskax buu na siiyey qofka dulmiga ku dhex jira ee dulmiga aan iska qaadayn dee ilaahay intuu soo daadego deed halkaas maaragtay dulmiga kaagama qaadayo maya ilaahay maskax buu ku siiyey aqli buu ku siiyey garaad buu ku siiyey karaamad buu ku siiyey haddaad adugu iska qaadays aday kuu taalla marka walaalayaal waxaan taa uga jeedaa markaan maaragtay aan gudagalo rag yahow ummadiya reer Jabuuti 43 sano imika aan soo galayno ee maanta 43 aan galayno wax walba inuu cumar uu sameeyey from to Xasan Guuleed ilaa iyo maanta wax walba wax uuna sameyn ma jirto wax uuna galabsan ma jirto habasa noqoto wax nii hadhay oo kale meesha ma taalo horta wax walba inuu cumar uu sameeyey laakiin waxaa kaaga daran oon weliba aan jeclaan lahaa oon naga baryaya ummadda reer Jabuutiyow ragga madaragtay xildhibaanada ee magaca isku sheegaya xildhibaanada raggaas intii hore iyo inta maanta ku jirta dhammaantiin waxaad ogaatiin wallaahi wabillahi watallahi baan igu dhaarnaa wallaahi xabsigaad wala gelaysiin waxaad u gelaysiin waa dulmiga aad Ismaaciil Cumar Geelle iyo taliskaas daalimka ay wax walba sameynaya aad aamusantihiin aan waxba ka soo qaadin dalkii baa la xaraashaya dalkii baa la iibinaya wixii la doona laga sameynaya lacagii dalka la boobaya wax walba waa la sameeyey indhihiinaad ku arkaysiin meel baarlamaan laga hadlayo iyo wax dameer leh waa habeenkii xalay tegey marka kuwaas maxay mudnaan doonaan ilaahay maalintuu noo keeno dowlad cadaalada rag cadaalada waxaa ballana in dhammaantood inaa xabsiga la geenayo dhammaantood in xabsiga la geenayo sababta waxa weeyaan dulmiga iyo dhibta aan ku jirno iyakaa saxiixaya waa inta weliba laga saxiixayo laakiin lamaba tusaayaba marka su-aashu waxa weeyaan walaalayaal waniga cajiradahayga hore nagu sheegay ee aan nigu macnay naga yiri ninkii saaxiibkaygii hore ee Cabdiraxmaan Boole dalka wuu soo galayaa kow boorsada wuxuu ku sitaabaa nii sheego naga yiri weji cafareed oo nin cafar in la tuso la doonayo maxamed Kadhacami oo magaca fruudka la baxay waa fruudkii afraad ee soo galay waxaa kaloo ininkun aad malqayseen habeen dhoweed oon bannaanka soo dhigay ninka abtigeeya Daahir Axmed Faarax ee magaciisa la baxay bariisnaaga maaragtay emerdeega ee isaguna maaragtay 22 sanadood bariisnaaga emerdeega ka isaguna signaalyaal uu u bixiyey Ismaaciil Cumar Geelle isagoo leh aqligaan ka shaqaysiino garaadka aan qaadanno awal maskax maan lahayn sanadkan buu maskaxdii noo timiday bal maskaxda aan ka shaqaysiino dalku wuu gubanayaa wuu burburayaa waa in ummaddu ay sara kacdaa ay gacanta isqabsataa si dalka loo badbaadiyo macnaato yaa laga badbaadinayaa yaa loo badbaadinayaa Ismaaciil Cumar Geelle yaa heshiis lala galayaa
sababtoo ah haddaan heshiis lala gelin dalkaa burburaya waa hadalladii uu daahir axmed faarax uu ku hadlay inaa qof kale oo uu leeyahay maaragtay war aan kacno aan isqabsanno maaragtay aan dalka badbaadino waxa kale ma jiraan waa macnaatu waxa weyn inuu cumar aan la heshiino ruwaayad maaragtay isku taga hala sameeyo canfariga waa la haystaa ninkii maaragtay fuurraba wuu joogaa oo fuurrabii cadhaysanaa maaragtay daaf baa soo galaya waa mid intii kale ee gudaha ku jirtay fuurrabana dee ilyaas dawaalaa u madaxa halkaabay sheekadu maraysaa halkaas ay sheekadu maraysaa tii ilaahayna waa gaar raggaa way tashadeen go-aan bay ku gaadheen in ismaaciil cumar geelle loogu shubo oo sankiyamondaga haddana la soo geliyo waa mid meesha taalla laakiin su-aasha waxa weeyaan oon caawa ka hadlaya waa dubay oo iyaduna saxiixa ku jirta oo la soo qaadayo oo maaragtay jinihii meesheedii lagu soo celinayo waa wax cajiib leh waxaweyn dhowr sinood ka hor dubay sidii loo dhacay waa la ogaa wixii lagu sameeyey waa la ogaa qayladii ka soo baxday ismaaciil cumar geelle waa la malqay maxkamadda jabuuti wuxuu ka sheegay waa la malqay adduunaha wuxuu ka sheegay waa la malqay dubay wayna dhacday dubay waa tuugad dubay waa mugrimiin cabdiraxmaan bore iyo dubay waa tuugin waxaasoo dhan buu bannaanka soo dhigay macnaatu waxa weeyaan ninkan odayga ee waayeelka ismaaciil cumar geelle hadalladu ku hadlaayo iyo actionka uu bixinayo isma leh wuxuu ku leeyahay qabyaaladdu waa xun qabyaaladdu waa gudaafad qabyaaladda haddii la dhaafo laynkii casaa xariiqii guduudnaa waxa weeyaan waa khatar kii dhaafo maaragtay qoortaan ka goynaya waan dilayaa qabiiliska ugu weyn ee ugu gudaafadsan ee ugu qurunsan ee soo ururiyay qabyaaladda waa isaga waa la garanayaa qabyaaladdu ku nool yahay iyo meesha dalku siduu yahay iyo dalka halka maanta ay ka taagan tahay iyo dalka waxa gacanta ku haya 43 sinood waa qabiilkeed uu isagu dhigay uu xasan guuleed u dhigay ilaahu naxariistee marka waxweyn qabiiliska u weyn waa isaga tuugga u weyn dalka dhaca waa isaga beenlooga u weyn waa isaga khaayinka u weyn waa isaga dilaaga u weyn waa isaga kiibaa maanta kule ya dubay oon shalay aan qandhuuf ku tufay yaan caawa soo gelinaya oo dubay baa jabuuti imanaysa oo dikadii su-aasha waxa weeyaan oon nii sheegaya reer jabuutiyo china iyo ismaaciil cumar geelle toddobaadadan oo dhanba ways haystaan safiirka china kama baxo xafiiska maaragtay ismaaciil cumar geelle iyo gurigiisa toddobaadadan oo dhanba waa lays haystaa waa laysmari laayahay maxaa laysku mari laayahay waxaa laysku mari laayahay ninkan inuu waalan yahay iyo waxaa la tala inay waalan yihiin ya saxeexi oy shalay china u geliyeen oy dhinac walba lacag kaga qaateen ya iyo china meeshii laga qaadayo oo dubay lasoo fadhiisinayo maxaa loo jeedaa waxaa loo jeeda wax kale maa dalkaa la burburinaya china wuu dhaarsan yahay china meeshuu galay meeshuu lacag geliyey meeshuu china galay meeshuu lacag geliyey qofka isku daya inuu ka qaado isagoo halkaas waraaqada haysta oo legalment ku galay oy dowladdan ay ummaddiina dhacday oy dalkiina dhacday in uu beri toole inuu china yaraa ka bax meesha waa waali reer jabuutiyow waa waali cad china inuu cumar way wala hadleen hadalku wuu socdaa china waxay leedahay carkee waa kaase ku dhac inaad dubay aad soo qaaddood maarata meesha keentid lacag baan kuu celinaynaayo lacagtaadaan ku siinayna I don't care lacag kaagama baani aniga waad ii saxeexday meeshan anigaa dhisay intii aan dhisayna waan garanayaa lacagna waan geliyey laakiin su-aashu waxa weeyaan china muxuu xiniyaha la soo baxay china muxuu inuu cumar
xiniyaha inta la leegay sababta waxa weeyaan china markuu inuu cumar uu lacagaha china ka qaadanayay qaybna official bay ahayd qaybna hoostaa la marinayay macnaheetu waxa weeyaan china mid yar baan nii sheegaya china wuxuu oranayaa in tareenka waxaan ku samaynayaa $100 milyan waa intay kaga baxaysay china $100 milyan inuu cumar muxuu leeyahay iyo ragiisu ilyaas dawaaliya tuuginta garab joogta waxay leeyihin chinow dee annakuna maarata kharashi waxbaan ku jirnaaye 100 kama dhigaystee 150 milyan baad ka dhigaysaa arka bilaahi baan igu dhaariya beega 100 milyan waa china oo wuxuu shaqada ku qabanayay maya baa laga leeyahay faktuurka waxaad ka dhigtaa 150 milyan ka dhig haye kadibna annagaa kuu sheegayna xagga lacagta aad nagu siinaysid iyo xaggaad lacagta marinaysid inta dheeraadka waa wax cajiiba la geray haye maxaa kale dee deenka yaa laga qaadanaya china laga qaadanaya kii dhisaya meesha yaa isaga dib lacagta looga qaadanaya macnaato china waa kii wax dhisayay waana kii lacagta amaahinayay waana kii madaragtay tuugnimadana maaragtay gacanta u gelinayay ruwaka marka soomaalidu maxay ku mahmaadaa af wax cunay xisho af wax cunay xisho kan ma xishoodo deed ismaaciil cumar geele ma xishoodo xishadu wuu ka tagay waa la wada garanaya oo shalay dubay markay meeshii joogtay oy dubay madaragtay ay lacagaha oy u soo marinaysa cabdiraxmaan boore oo la cunaayay dib ku ka xishoonay oo ku iimaan ka soo dhacay iimaankii baa ka soo dhacay laakiin barnaamijka waxa weeyaan ninkan dalkayga saa ugu ciyaaraya ee dalkayga baabi'inaya waa mushkilad waxaan haddeertolnu yidhi waar china meel uu soo galo meel uu lacag geliyey meel uu madaxda uu lacag siiyey oo kontrabahda inuu ka baxo uu habeenkii xali tagay mid yar baan nii taabsanaya china waa ku galay madaragtay south sudan betroolka south sudan ninkii u horeeyay qarxiyey ee soo saaray ee lacagta geliyey ee ka shidaal qaatay isagu ah waa kii lagu kiciyey waa kii dab lagu shiday dabkaas ka socda south sudan dabkaa ka socda south sudan hubka labada reerood ee isku gumaadayaan china laga keenaa bal arka halkay wax ka socdaan arka china yaa laga keenaa marka inuu cumar kubad yaroo dubay hadduu la ciyaarayay uu carab hoosteeda uu kubadda ku yar ciyaarayay uu marna faransiis iyo maraykan uu u ruwaayda inuu maaragtay uu kubadda ku tuurtuurayay maanta af libaax buu galay af libaax oo china leeraa buu galay chinana sidaa kuma jooga muxuu noogu jeegayn china wuxuu ugu joogayn china meel ka fiican oo jabuutiya maanta ma haysto sudan buu tagay boor sudan buu tagay halkaa buu doonaya inuu wax ka sameeyo way noqon weyday uu joogaa laakiin qorshaha uu doonaya way noqon weyday wuu soo baxay wuxuu miday marka eritrea miday eritrea wuu joogaa waxbuu ka wadaa wuu shaqeeyaa laakiin wuxuu doonayay iyo siduu doonayay eritrea way noqon weyday wuxuu soo galay jabuuti wuxuu doonaya uu ka helay muxuu ka helay laynkii uu khadkiisii uu shaqada ku qabsanayay oo bedelmandab ibaabkeediya kow waa meeshii dowladaha adduunku oo ay dhan ay ku dagaaltamayeen inay soo fadhiistaan dowladaha adduunka o dhan waa meeshii ay doonayeen inay soo fadhiistaan ibaabkaa yare bedelmandab yemanta iyo jabuuti ka dhexaysa siduu ku soo galo muxuu helay wuxuu helay rag tuugiina iyo madaxweyne tuugiina yuu helay oo lacagta qaadanaya oo markii horeba uu informationka gacanta ku haystay dadkoogii laga dhigay maaragtay baaba bilaa cilmi bilaa tacaliin bilaa maaragtay caafimaad bilaa maaragtay hooy dal la baabi'iyey yuu madaxa u soo galay waxaas waa wuxuu jecel yahay chino waa uu ka helay midda kale waxaad ogaatiin ummadii reer jabuutiyo si fiican i dhegeysta
china adduweynaha qurbayaashii kun sanadood ka hor ya dariiq buu samaystay oo looran jiray maaragtay dariiqa xariirta oo china ka soo baxaya oo ilaa iyo maaragtay yurub ilaa iyo aasiya ilaa iyo ruushia ilaa iyo indiya soconaya dariiqa xariirta la sheegay dariiqii xariirta meel kastuu soo maray uu soo dhammaystiray dalka u baahnaa iyo dalka inuu soo galo uu doonayay dariiqa xariirta ee ibaabka u yahay carab iyo afrika waxay noqotay jabuuti waa halboolihii jabuuti ayay noqotay waa meel lama huraana salaamu calaykum waana salaamay dhammaantiin inta gudaha ku jirta halkan diyaan iyo dhammaantiinba waana salaamay walaal aad baad umahadsantihiin bartageya walaal bartageya merci infiniment marka meeshu u baahnaa waxa weeyaan jabuuti waa afrikay ku dhejisan tahay waxay ku dhejisan tahay maaragtay ay ka soo horjeedaa carab bal ark ilaahay baa nagu dhaariyey waxau kale oo maaragtay uu faa'iido kale ku qabaata chinuhu dalkii labaad ee afrika ugu badnaa oo etoobiya iyo jabuuti dhabarka ku haysaa bal ark saddex buu isku qaatay kow etoobiya oo dalkii labaad afrika oo 120 milyan dhaafaya kow jabuuti oo ku taalla ibaabkii badalmandab ee 30% betroolka iyo gaaska adduunka uu soo marayay waa labo saddex ibaabkii madaragtay carabta gobolkii carabta iyo afrika oo isku xidhan waxuunu weligiiba ka fikirin chinuhu yuu isku qaatuu soo helay de maanta tii baa laga leeyahay chinihii niyahow chinow meesha ka baxo meel kalaan ku siinanaaye dubay baa halkan soo fadhiisanaysa le chinois n'est pas con chinuhu doqon maaha ahbal maaha chinuhu mana kacaayana mana baxayana hadduu kacaayo hadduu baxayana jabuuti waa inuu gubaa jabuuti waa inuu gubaa annakaa la doonaya in lana gubo oo inuu cumar galay noogu talagalay qurunka iyo fasuqa iyo baaba ummadda reer jabuuti ku hayo in uu madaragtay halkaas uu jeena madaxa noo geliyo ha jeena muxuu samayn karaa wax kastuu samayn karaa waa dowladda adduunka maaragtay haddayna kow hayn haddayna laba hayn ugu dhaqaalaha badan adduunka lacag haba sheegin jabuuti oo dhan buu wala iibsan karaa jeenuhu jabuuti oo dhan say u dhan tahay annakoo dhan buu na wala iibsan karaa ya laakiin maxaa uga fudud isaga waxaa uga fudud inuu jabuuti inuu ka dhigo maaragtay meedaan yaroo kubada oo laysku gubaayo oo lacagaha bixiyo hubkan uu soo geliyo ha hubkan uu soo geliyo yaa ka celin karaa in uu maaragtay meeshaas ilaa iyo jabuuti ilaa iyo etoobiya inuu isku gubo china waxba lamaha sababtoo waxa weeyaan china haddii la doonayo in jabuuti laga kiciyo oo in cumar geele soo geliyey deniyahow china sidaad moodaysa maaha af libaax baad gashay chinana mid baa jirta waniga kuu sheegay wuxuu eeganaya waa etoobiyuu eeganaya china etoobiyana waa ibaabkii africa waxa weeyaan etoobiya waa united african africa dalalkii africa meeshii ay xafiis ku lahayeen ay safaarad ku lahayeen 54 dal ee africa waa addis ababa marka macnaheetu waxa weeyaan maanta fursadda uu helay chinuhu weligii ma soo marayso jabuuti inuu saa kaga baxana waabay gacalisay lakin waxa weeyaan ragga maaragta seexday ragga madaragtay aan arrintaa ka hortegin ee inuu cumar kubadda la ciyaaray waayo waa saddex waa etoobiya waa faransiis iyo maraykan saddexdaabaa ka seexday ummadda reer jabuuti maskanaku faransiis baan ahayn maraykan baan ahayn etoobiyaan baan ahayn lakiin inuu cumar markuu jeena soo waday uu jeena keenayey maraykan iyo faransiis inay veto ku dhuftaan bahed in etoobiya ay la hadlaan bahed laakiin waxaa dhacay anigu aniga mar hore dhowr jeer baan ka hadlay khalad kol ka soo baxaan ii sheegaya waxaa dhacay china markuu africa inuu go-aan ku gaadho inuu soo galo wuxuu galay waa
markii dalkii u horay uu galay South Africa yaana soo geliyey Nelson Mandela soo geliyey Nelson Mandela muxuu soo geliyey inuu dalka maarta uu ka shaqeysto uu investment dalka uu geliyo Nelson Mandela ururkiisii ee halgamaaga ahaa hubka iyo lacagta iyo gacansiinta China ka helay taabuu ugu abaal guday inuu China ka raniyo South Africa soo gal maalgelin waxa doonaysa ku samayso ya hana ku noqoto ibaabka Afrika anna waan ku caawin waa ballanka uu qaaday maarta Nelson Mandela uu madaxweynaha China la galay habas noqoto wayna dhacday laakiin talaabadu qaaday waa maxay Nelson Mandela oo markaas markay ururka halgamaaga hayeen waxa dhacday Nelson Mandela ururkiisa South Africa u halgamayay inay xorriyadooda qaataan iyo ururka TPLF Tigray People Liberation Front iyo Eritrean Liberation Front intuba asxaab hayeen yaa caawinayay China caawinayay yaa hubka siinay China siinay marka maxaa dhacay marka waxa dhacay mar uu Nelson Mandela uu yimid maartay Addis Ababa uu soo galay oo marka yaa joogay waxa joogay maartay ishaq Meles Zenawi baa joogay oo marka madaxweyne ka Ethiopia Meles Zenawi iyo Nelson Mandela markaas arkeen halka bay sheekadu ka bilaabantay oo Nelson Mandela ku booriyay saaxiibkii Meles Zenawi in uu kala shaqeeyo uu gacan ku siiyo sidii maartay investmentka iyo lacagta iyo gacansiinta China Africa u soo galay Meles Zenawi halkaas maartay markuu saahade in Meles Zenawi wuxuu suwayay Mareykan iyo Yurub inay gacan siiso moogta waxba uu ka waayay oo halkuu doonayay inay maartay ay wax la qabtaan ay wax dhisaan ay wax soo galiyaan waa loo seexday Yurubna wuu seexatay Mareykan wuu seexday China irana kula jooga oo soo booday markiiba oo lacag iyo dhismo iyo wax walba meel kasta ka furay arka Addis Ababa maartay boqolkiiba 75 maartay China dhis oo wada oo lacag galiyay taas baa keentay fikir ku keentay ina China markuu Ethiopia maartay maalgelinta ku sameynayay dikada Djibouti u isticmaalay wuu arkay inay Djibouti tahay istaraatiiji aan laga maarmeyn halka buu ruwaayadiisii iyo sheekadiisii iyo sida maartay oo maskaxaan u qaadanayo u darsayay yu eega dawladda Djibouti waxa meeshu inay dawlad jirinba ay mafia iska tahay meeshu inay dawlad jirin oo meesha maartay reer iyo family iyo tugnimo ay meesha ku jirta yaa maartay soo cadaatay China wuxuu dibadda warda dhulkan baaba cajiibaba meesha reer maartay 700,000 ay qof ku nool yihiin asalaan reer Djibouti waxaan 500,000 yaan gaadhana hadaan gaadhanaba waxa kala soo galeetiga naga daay malyoon bana iyo ruwaadaas naga daay laakiin China wuxuu warda meesha banaanka ee cidlada ee Faransiisna uu lacag gelinayn Mareykanna lacag gelinayn Carabna ay lacag gelinayn Yurubna ay lacag gelinayn anayba ii banaantayba anayba ii banaantay halka buu maartay China uu soo galay uu war in Umarow maxaa tala lacag baad u baantay maxaa doonaysaa halkeen ku dhisa halkeen ku sameeyaa niyow wuxuu sheekada ku bilaabay ogtiin waad garanaysiin baarlamaanka uu gaboobay waa kii Faransiiska baabay anaan sameynaya bilaash baan ugu sameynaya sheekadiisu waa ka markuu doonayo maartay inuu dabada sabarad ka galiyo waa inuu ku maartay meel yaro bilaash aan ku sameynaya bilaash ma waa laga matajinaya in Umartu uu ka heleba ha kanaan doonina kanaan doonina sidoo u bariyo tomayo soo maartay kulba wax u qalqaaday waa markii damada China maartay iyo weede meeshada waan ku dhisayaa tareenkan ku sameeynaya dikadahan ku furaya kani baan ku dhisayaa anaaba maalgelin ku sameeynaya lacag maxaa doonaysaa aniga weydiiso lacag halkaa buu ka geliyay inuu Umar arkay inay dawlad maartay maafiya tahay dawlad maartay aan dal iyo ummadba ka naxayn dal aan maartay laga naxayn dal aan maartay loo joojinayn oo diin iyo miladu tahay wax halka la geliyo afka waka China dalku helay waa kaas dalku helay waa ka China maxaa dhacay marka waxa dhacay wax kala ma China qorshe iska watay wanaga ni sheegay dariiqa xariirta uu soo waday
aasuu soo maray raashuu soo maray kor buu soo maray wuu soo socday wuxuu soo gaadhay bakistan buu intaasoo lacag geliyey kadib muxuu sameeyey deked caalamiya oo aad malayn karayn yuu ka sameeyey maaragtay magaceedii baa iga baxsan gobol far iyo waxaa la yidhaha cumaan horteeda yuu deked maaragtay cajiiba ka sameeyey wuxuu kala sameeyey maaragtay free zone waxa la yidhaha oo markada oo suuqa maaragtay china maaragtay walka uu soo dhiganayo oo india kula tartamayso oo ka jaban oo india ba khatar ku jirtaba sababtoo maaragtay dadkii maaragtay zone franche marka loo furay oo india jaarkeeda dadku markaa bay mana ka iibsanayaan oo xoolihii india ba maaragtay khatar ku jirtaba waa mid halka markuu sameeyey muxuu arkay markaas magaciisii china wuxuu heshiis la galay maaragtay cumaan uu yiri waxaan kuu samaynayaa dariiq aan isku furaynaba cumaan iyo bakistan oo badda hoose maraya dariiqa maaragtay france iyo ingiriisiga la isku xiday ee badda hoos maraya tunnelka yaan ka samayn buy tunnelkiibuu wadaa wuu dhamaystir buu ku socdaa imika muddo 2-3 sano ayuu wadaa tunnelkii inuu bakistan iyo cumaan isku furo halkaabay maraysa arrintii taas kuma joogayo oo wuxuu doonayaa china dariiqii xariirtaha yuu wadaa macnaatu waxa weeyaan china waxaa ka soo baxa traanka soo socda ee aasiya raasha soo marayo ee soo soconaya ee intaasoo dhan soo maraya ee bakistan imanaya traankiio sida u socda baabuuradiio sida u socda oo china ka soo baxay yaa la doonaya tunnelka in la soo mariyo bal arka ilahay baa nagu dhaariyey bal si fiican ii dhegeysa tunnelkaabaa la soo marinaya cumaan baa la soo maraya cumaan marka la soo maro kadibna maarata waxaa la soo maraya yemanta oo salale iyo dekadaas halkaas baa la soo maraya yemanta markaasaa loo soo maro oo nabaddu maaragtay waa qorshe u wato ay yeman nabad noqoto halkaabaa la soo wadayaa yemantal way ninkii ogaa sheekadii maaragtay madiinat al nuur ya labadii magaale laga dhisayay yemanta iyo jabuuti ee bridgeka la sameynayay qaybna jabuuti qaybna maaragtay yemanteed bridgekaas waa mid ugu yaala oo china lacagtiisi iyo si loo sameeya waa u diyaar waa kow taas maaha in uu china mar haddii dariiqii bridgekaas uu mid yahay waxaa kaloo uu ka fikirayaa inuu yemanta iyo jabuuti uu tunnel ka furo oo badda hoosaa tunnelka maaragtay cumaan laga furay iyo ukda ka jira in halkaas iyadan la soo mariyo oo macnaatu baabuuradu istaaginba tareenadu istaaginba xagee loo socdaa waxaa loo socdaa jabuuti baa la soo marayaa dhinac laga marayaa iyo gudaha la soo marayaaba horta waxa weeyaan jabuuti horta waa istiraatiijiyada china maxaana loo jeedaa in ethiopia free zone oo africa laga furo oo ilaa iyo kenya ilaa iyo soomaaliya ilaa iyo adduunka africa oo dhan halkaas ibaab looga furo waxa oo lacag uu geliyey china waxaasoo balana uu china uu wato iyo inuu cumar doonaya ya inuu beritola ka raadhe warniyo dekada meesha ka kaco dubi baan soo fariisinaya bal ilahay bal waalidiisa arka ummadii reer jabuutiye waxaan ii sheegay maaha wax cadhe iyo wax la abuuraya maaha this is reality informationka nii dhibe waa waxa runa waa wax aad 99% ragga dowladda ku jira way wala ogyihiin wayna wala garanayaan intiina kalena waad fahmi kartiin oo waxaan ii sheegay maaragtay adduunyahoo dhan baa maaragtay la socda laakiin problemka waxa weeyaan annakana haysta ninkan maaragtay ee tuugeed aamusan tihiin ee ilaa iyo dalkii xaraash meel walba ka waday ee meel walba gacanta u geliyey ee sida maaragtay wararka iminkana soo gaaraya ay caddaatay in maaragtay terroriskii adduunku maaragtay ay jabuuti ay soo wala degeen social sweden waxa weeyaan waar maraykan iyo yurub iyo faransiis iyo maaragtay ethiopia waa la ogyahay maaragtay lacagaha iyo waxaa ka dhacaya waa la ogyahay wixii ka socday ee barnaamijka iyo qorshihii ka socday loolan jiray in biiraadka soomaaliya yaan maaragtay jabuuti maaragta ka hogaaminaynaa riwaayadaas way dhammaatay qandaraaskii bayraadkii soomaalidu way dhammaatay laakiin problemka wuxuu ka taagan yahay maraykan iyo faransiis iyo yurub iyo ethiopia maxay ninkan uga aamusan yihiin way waa su-aal meesha la isweydiinayo su-aashu waa taas su-aashu waxa weeyaan waa la ogaya jabuuti in lacagaha tuugnimada lagu meedho
waa la ogyahay laundering money inay tahay ya waa la ogyahay oo wayna ka arkay baananka maaragtay ka yimid maaragtay in Aasiya in laga furay waad ogtiin lacagtii cali cabdalla saalax inay Djibouti bank Yemeniga in halka ay taalo dhiiga lacagaha dhan ka imanaya Sacuudi Arabiya iyo Yementa iyo Carabada dhan Djibouti waa lagu meeraa Djibouti waa lagu safay lagu daa waxa soo dhan waa mid waxa cajiiba Francisco ogyahay baanankaygu ku jiraa kama hadlayde he don't care shaqadiisa maaha ila rena futro shaqadiisa maaha meesha ay tuugnimo tahay ay dhalla isku yimaadeen shaqadiisa maaha lacagtan buu waliba leeyahay maartay aqalaad ku ibsanaysiin kaalay Paris oo warka aqal ugu ibinayaaba ya aqal ugu ibinayaaba marka wax weyn baanaka Francisco sharciga ka jira Paris Djibouti kama shaqeeyo sharciga Paris ka jira baananka Francisco ya Djibouti kama shaqeeyo wayna ogyihiin oo wayna la shaqeystaan baananka kale ee Aasiya ka yimid iyo kuwa raashintu ay ka shaqeeyaan Djibouti ya way isku leexiyeen waa su'aal isweydiina laakiin dad meesha xawaaninta ku nool ee bilaa daraamka ee bilaa dhiiga waa reer Djibouti waxa bilaa dhiiga ee dalkooga Britol lagu gubayo iyagoo saa u fadhiyo qaadka cunaya iyo dhilla ku dhex jirta iyagoo saa u jooga ee Djibouti lagu gubayo waa reer Djibouti waa ilaa goorma waxa kaaga daran wayba iskugu faanayaanba ay ku leeyihiin maartay anoo wasiira oo inta hore maartay la diiday dhul yaan maartay markaan wasiir noqday yaan dhul soo xaday aqalaan ka dhistay islaantada halka ma ka qaadatay in cartan maar wasiirkii dhanaa ee budgetka ee lacagta maartay dawladdu ay soo galaysay yaaba ku faanayaba cadaya hayso ya kaas in la qabteeyo markaa gabood la geeyo dilama keenayo parce isagaaba saxiixaba maartay lacagta inuu Cumar siinayo iyo Khadar Maxamuud Cayd lacagta uu Khadar Abeeso Ismaaciil Umar Geelo siinayo tuugnimada isagaaba saxiixaba marka yaa qaban kara umana dhalin dalka wuxuu ka yimid Ethiopia waraaqada maartay falsu wata kaaba ku faanaya ya laakiin sidee alxamdulillah aqaladu sheegay wuxuu sheegay oo dhanba annaka inoo tala iminka nisi sheegaya tuuginta reer Djibouti aanu sheegaya iyo waxa lacag gelinaya waxaan leeyahay oo iminka baan sheegaya ballan baan ugu qaadnay annaku iyo dadkeegu hadduu ilaahay nafta noo daayo hadduu ilaahay caafimaadka noo daayo waxaan sheegaya lacag kasta iyo dhul kasta iyo aqal kasta oo la iibsaday haddii la iibinayo waxaan la hadlayaa waliba dadka foreigner-kan la hadlaya ha iibsanina iminkaan ni sheegaya aqalada wala qaadanaya sida u dhan yihiin wala qaadanaya nin aan aqal aan mishaarkiisa aan caddayn villa uu dhistay iyo madrad uu dhistay wuxuu dhistayba ballan baan neegu qaadnay in la wala qaadanayo dawladdu ay dhalanayso ay qaadanayso hadaltaas ma jiro oo dad waxa weyn cadaalad haddaan dhisna aan doonayno ummad iyo dal inaan dhisna haddaan doonayno waa inaan ka bilownaa dalkaas wixii dalka laga qaatay wixii cadaalad darro lagu boobay wixii dalka maaragtay ka baxay waa in waxaasoo dhan ummadda loo soo celiyaa waan ummadda intii dhibatay intii dhaawacantay intii agoonta ahayd intii bugtay intii daryeel ahayd waxaasoo dhan waa inaan magteedii ku bixinaa waa ballan magteedii inaan ku bixinno aqalada maaragtay uu maanta ina Dawaale iyo Yuusuf Dawaale reer Dawaale iyo Maxamed Jaamac iyo tuugintaasoo dhan ay ku faanayaan oo ay ku xarbinayaan ku ordayaan ballan baan igu qaadnay ya in aan ummadda soo celinayno hadduu ilaahay taas waa ballan suurtagal ma in Cumar baan la heshiinaynayo kanaan la heshiinaynayo halka maan wax ka dhisa waxaas wax soconaya ma ummaddu waxay u baahan tahay waji nadiifa dal nadiifa ummad nadiifa baashkaas waa in la rogaa waa in laga tagaa oo la masaxaa siday sheegaysay in Fatxi Bukaaco ya kii baalaha u jaray waa Ismaaciil Umar Geele Soomaa kii baalaha u jaray ya dhaarta ku maray quraanka ilaahay subaxii dambana maartay tuugnimo iyo qurun ku bedilay waxa weyn waa kaas horta dalka wixii haysto waa ka shanta waqti baa la tukanayaa ilaahay baa la baryayaa masaajidka waa laga horeynayaa labada gees baa la eegayaa ilaahay baa la baryayaa waa la soo baxayaa fusuq iyo qurunkii baa la galayaa iyo tuugmadii
إلهي مونا عادلين إلهي مونا أركين إلهي مونا قلوبتنا قرنين ورقة سكوطة يا إن إلهي أبان شيئا وعجيب أنا وحن سويدين يا وان قرن لهاي والله ورنيك مواليه مسوا واسي مركو مارت لبنان لبنان ابن عمر عجلته soo saaray aad baan uga helaa oo marka qaarkood marka inaan qoslaan doonayo cajalada baan dhageystaa uu leeyahay shaydaankii jinnigii yaa ka yaabay warnikan wax walba saa sameynaya hadday subax tahay hadday habeen tahay salaad hadday tahay kan kale hadday tahay waxaasoo dhan sameynaya oo kadibna ya waxaan isweydiinayaa war jinow war ma isagaa igu jira ismaaciil umar geli mise anaa ku jira jinkii baaba yaabay oo orod kaga baxay horta ninku waa kaas laakiin waxaan garan lahay damiirka sinaya telefisyoonka markuu soo fadhiisanayo uu ka hadlayo leey maaragtay qabyaaladda waa inaan iska ilaalinaa dalka waa inaan maaragtay gacanta qabsanaa sida fuli qofku walayn ninkan qofku walayn iyo kuwa sacabka tumaya kuwa sacabka tumaya sarakaya sida debil abu walayn abu debilin abu maaragtay waa khatilin dalka baabi'inaysa ummadda baabi'inaysa dhiigooga jecel ha ninka sacabka tumaya ninka beenta sheegaya ninka sacabka u tumaya ilaahay baa nagu dhaaray cadaabtu galaya wallahi baa nagu dhaartay cadaabtu galaya ifka ku galiya iyo aakhira ku galiyaaba cadaabtu galaya anoo garanaya ninkan inuu daalim yahay uu ummadda dhibaayo uu been sheegayo oo haddana sacabka u tumayo ajiradaha waan haynaa ajiradaas waan haynaa برينا مارتي ميسك نيسو فرسانة ساعجرداس إنكو أركايا أو صعب كتوما يسمعوا العمر قالوا عقو عضلايو يوحوا سمعنايو أو تقرنا يسين إنو مارتي أو ظلمي كو شقينايو أو صعب كتوما يسين بحاد كورة دوتين اسمعوا العمر ما مقعون با ومدحويني واتكو جرتين خفسك واتكو جرتين وانا بلا عضل تاني بانو سو قرينا ولا ليل وانا قاني الشيء رير جبتيو China inta soo lacag buu galiyay inta soo lacag yu galiyay oo billion dollars from to Pekin ila Djibouti marka ma umalaysiin Ismaaciil Umar Geelon aan nii sheegay oo faraha ka hayaan oo China faraha ka hayo oo lacagihii been abuurka oo hoosta ka sii ay wala garanayaan halkay mariyeen iyo lacag halkay akoondadii wuxuu dhan ay gacanta ku hayaan oo maxkamad kasta oo adduunka la geeyo oo horay maarta xabsiga loo tuurayo horay xabsiga loo geenayo inuu Umar iyo tuwinto dhan iyo Ilyas Dawalaba dhamaantoodba ayuu been u sheegaya ma Dubai buu been u sheegaya ma Cabdiraxmaan buu been u sheegaya ma Francis buu been u sheegaya ma Mareykan buu been u sheegaya ya sida la fuli walacad ووالعد China هدو مودهي دوبي ديارادو كوبادو كودو فنايا دوبي اسكا بحيس يا يا فرانسيس كانوا وكعب سينا ورنا مارتي هدا دين ويد والله دad kan ku kicino مارتي soo baxan leh تي هدو مودهي China il s'est trompé ويس خلدي China مدركتي China mid ba China la hadli karta China qof baa la hadli kara oo madaragtay miiska u soo fariisan kara waa dawlad nadiifa oon anagu kaga adagnahay maxaan kaga adagnahay ummaddu may saxiixin ummaddu ma ogeyn heshiis caalamiya oon ognahay ummaddu ma jirto waxoo dhanba wuxuu ku samaystay black market annagu markaas laba mid baan soo galaynaa China inaan duuduub isagii black marketkiisa aan gudaafada ku tuurno iyo inuu China sid nadiifa oo edaba oo ixtiraama oo nagula shaqeysto annagu China hade business kan iyo wuxuu wado competition ka adduunka ka mid tahay oo China Mareykan buu joogaa France buu joogaa Europe buu joogaa Djibouti waa la mid oo de heer caalami ah Djibouti maartay ay ku xiran tahay waa normal laakiin China ha ogaado
waxa uu black market ku saxeexay waxuu black market ku saxeexay ummadda reer Jabuuti marnaba qabanayso wallahi baan kugu dhaartay ummadda reer Jabuuti marnaba qabanayso adduunyuhuna maartay annaguna raacaya ha oo ceeb bay ku noqonaysaa ha hadduu dalkan yar masaakiinta saas tuugintaas ay maafida heshay uu isagu uu danaysta uu dana ka watay uu annaga inuu nagu rogo uu doonayo waxa weeyaan ma soconayso dad ma soconayso marka China waxaan leenahay waa inaadna sugtaa waa inaadna gacan qabataa annaka kula sheekaysanayna annaka kula hadlayna oo si daacada si madaragtay edaba si asluuba annaka madaragtay miiska kula soo fadhiisanayna laakiin hal taaka dhiigayga iyo dhulkayga iyo dalkayga xaaraan bay ka tahay maaragtay inaan iibino oon xaraashno xaaraan bay ka tahay haddaan wax iibinayno ummadayadoo raalli ka ah oo gacanta taagtay oo tiri waan iibinay dalka annaka intaa ku raacnay yaa soconaysa dalka ilaa iyo ka baadiyaha jooga iyo ka magaalada jooga dhammaantood qalinkaas ay wataan farta ay taagayaan iyo gacanta dhigayaan meesha oo maalinta hal kaare dalka la iibinayo iyo koo raalli ka ah yaan dalka maaragtay aan wax iibinayna laakiin tani maanta socota 43 sanood lanagu dhacay lanagu dilay lanagu boobay oo dalkii saanta halkaas maanta la soo gaaray oo maanta la diyaarsanayo in madaragtay la iska horkeeno maaragtay China iyo Mareykan iyo Faransiis iyo Ethiopian ya iyo maafiyadan ya iyo Arab oo annaka maaragtay laga dhigto maaragtay Yemanta labaad ilaahay kama bareen ha Yemanta madaxiina inuu arka ninkan maaragtay waxa soo dhan sameynay assalaamu calaykum Ahmed Sheekh Abdullah waan ku salaamay ninkan waxa sameynaya waxa ku hadlaya salaada uu galo inkaraya markuu ka soo baxay wax dilaya waxadaya xashka maka inta soo jeertay la ilaha illallah muhammad rasuulullah la ilaha illallah muhammad rasuulullah waxa ajiib waliba waxa kaaga daran sacuudigan arkaya dhiig cabaha soo kale khaatilkaas soo kale haddana madaragtay gacanta ku wata wax la isweydiinayo waa su'aal meesha taal weyn maka maqaamka ilaahay in saa loogu ciyaaro oo saa loogu durduriyo oo saa loogu ogolaado ya war madaxweyne kastuu yahay maqaamku ka sareeya qabcadu way ka sareysaa laakiin ya in la yaraa makaan tagaya xaramkaan tagaya oo ilaahay baan maartay cafis weydiisanaya oo la soo noqonayo oo halkii laga miisaayo istaan kurayaan waa cajiib qofku wuu khaldami karaa ilaahayna waa qofur raxiim oo toobaddu way furan tahay la garay laakiin toobadan aad ilaahay weydiisanaysid eed soo noqonaysid eedna halkii ka miisaysid maxay tahay marka maxay tahay waa gudaafad marka kii kula jira kii maartay maamuusa iyo kii maartay qarnayaba waa wala gudaafad marka taas wax soconaysa maaha laakiin walaalayaal waa la haystaa Djibouti waa la haystaa China safirkii China Djibouti fadhiya kama baxo xafiiska Ismaaciil Umar Gele iyo Malik Ramus ana taani sheegaya inuu Umar iyo Ragiisi iyo Ilyas Dawaale iyo kii maartay dikadii joogay Abu Bakar ya dhammaantood xaar bay dhex fadhiyaan bas waxa weyn ballanqaadkii ay maartay ay ugu qaadeen maartay in Dubai ma fulinayaan mana dhici karaysana annaka laftigeega Dubayna waanu sheegaynaa waan la hadlaynaa Dubay wallahi wabillahi watallahi baanu sheegaynaa ya Dubay xaaraan kuma qaadanayso dhulkeega xalaal bay ku qaadan laakiin waa inay ummaddu ay ogtahay Dubay waa walaaladeen oo anigu Dubay maartay cadow kumii walay gaf badan iga gashay oo dhib badan ii geysatay anigu Dubay ya cadow kumii Abu Dhabina wanaag iyo sharaf yay madaragtay markii dhibta Dubay ku qabsatay Abu Dhabina abaalkeeda ilaahay siiye si sharaf leh oo edeb leh yay maaragtay diyaaradda ay saareen oo
أنا الكاس أمهد علنايا إلهي خرسية ها أبو دبي إلهي خرسية سي شرف له أو مقع له يمر ديار إيسارين لكن دبي دبت إيجي ستي يوحي يقول سميسي إلهي بان كداي رق بدن أو مضحة إلهي رق سري وان لحظلي وان لفريستي way iga qaateen dibna iguma soo celin laakiin markii kilaati Abu Dhabi hadalna dhex maray way ii yeedheen way qaadeen diyaaradday saareen waliba way weydiiyeen ma joogaysaa mise waad baxaysaa waan baxayaa baan oo meeshan nafteeda khatar ku jirta sidaba ku soo baxay laakiin Dubai anu cadowtimo mahay laakiin samid baasan ogoleyn Dubai hadday u qaadanayso inay Ismaaciil Cumar Geelle waxay ku samaysay iyo waxay ka samaysanayso inay ummadda reer Jabuuti ay yihiin xawayaaniin in anagu dee carabka waxaan u nahay cabiid baan u nahay carabka anagu dee cabiid baan u nahay oo dee dadka maaragtay gaajoonayaan nahay laakiin se maya Afrika way isbedeshay Afrikada maanta iyo Britole way isbedeshay carabna taas waa inay ogaataan Afrikadii hore maaha taas Soomaaliya ka socoto waan arkaynaa ee ka dhacaysa Soomaaliya maray ka baxdaba way ka bixi waa Ilaahay hortii oo Soomaaliya halkeedii bay ku soo noqon halkana baaq baan ka sii deynaya oo Soomaaliya ku saabsan si fiican u dhageysta ummadda Soomaaliyeed si fiican u dhageysta walaalayaal waxaan ila hadlayaa waa Suldaan Cabdulla Dabarkaale dhibta iyo dhibaatada nagu socota iyo dhibaatooyinka nagu socda iyo qaraxa iyo dilka nagu socda wallahi oo billahi tallahi baan nagu dharanaya annagu haddaan reer Jabuuti dowladda Jabuuti haddaan annagu magaceeda aan wadano wallahi dhiigga walaaladeeda Soomaaliya ya qayb baan kaga jirnaa qandaraaskaas waan qaadanay baroor diiqa iyo oohintaan ooyayno oon maaragtaa nila ooyayno walaaladeeda Soomaaliyeed ilaahay ha u naxariisto walaaladeeda Soomaaliyeed waan jecelnahay that's maaragtay is a bullshit waa gudaafad madaxda Soomaaliya way wala ogyihiin farmaajo wuu ogyahay ninka nisaa xukuma nabad iskuda Soomaaliya wuu ogyahay war waxaan ii sheegayaa walaalayaal hadallada Suldaan Cabdulla Dabarkaale dhageysta cajiradahayga dhowr jeer baan kala hadlay anigoo interview u dhiibaya maaragtay Daahir Cali Sow 3 interview oo maanta 400,000 dhaafaya wax ku qaata waarna gacan qabta annaka gacan qabta wallahi baan igu dhaartay Soomaaliya farmaajo khayrow Suldaan Cabdulla Dabarkaale haddaad gacan qabatiin wallahi baan igu dhaartay magac Ilaahay ma qaraxa Soomaaliya uu joogsanaya hadalkaas si fiican u miisaama ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaantiin Soomaaliyay reer Jabuutiyo Ethiopia Soomaalida Somaliland iyo Soomaaliya dhammaantiin hadalka iga gaarsiiya farmaajo waanu saay malqa oo si fiican farmaajo aniga haddaad doonaysid ciddaan yahay taariikhda Soomaalida ragga madaxda iyo nabad sugidda Soomaaliya way taqaantaa in adeerka weydii بريزان فرماجان الله إن أدرك حسن مذوبي قاشان لسري حسن مذوبي إيه هايستي عيدن كبوليسك إمر لو ديبي مقرنا إنه شريف إيو حسن شيخ مركو جوغي حسن مذوبي مركو وجوغي حسن مذوبي وولالك وصاحبك ونيقرنا يا وانا إن أدرك هذا فرماجو إيقا وريسانيا qoraaladan u dhiibay iyo qoraaladan ka qoray Djibouti wuu haystaa oo berigi Maxamed Siyaad Bare waan u dhiibay way garanaya marka waxaan ku leeyahay madaxweyne Farmaajo la hadlaya saaxiibka la hadal qaraxa inuu ka joogsado ma doonaysaa qaraxa Soomaaliya inuu ka joogsado ma doonaysaa
صاحبك الهذا دكتور أبي دكتور أبي الهذا رئيس الوزراء إثيوبيا وحكى لها كورن وحكى لها ويديسن waxaad ka tiraahdo maartay warniyow suldaan cabdalla dabarkaale ninka magacaaba ay soo gaareen ninka adna waa taqaantaa doctor abiyo oo dowladda way ka dharagsan tahay ninkaas bal dhageysto wuxuu wadaa nabad inuu ka dhaliyo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Somaliland iyo Eritrea nabad buu ka dhalinayaa fikrada dhaadheerna way ku jiraan madaxiisa war ninkaas intuu nool yahay بريتول مركو دنتد سومالي وات كوما ماده ترى مارتي نندت كبيسا داما نندنتي كبيسا داما سلطان عبد الله دبركال انتو نول ياي كفايديست انو جيسك نبد كو كان والله بان نيغو دارتي عاو بشوا لبو وا جنوري 2020 جونا دكتور ابي يا فرماجو هدي دغيستان Soomaaliya way dagi khatarta ku soo socota Ethiopia baska waxay ogaataa Dr. Abiy waa inuu ogaadaa qaraxa iyo dhiiga ka socda Muqdisho wallahi baan igu dhaartay oo billahi oo tallahi baan igu dhaartay aadi sabab ka dhacaya dir dhabo ka dhacaya qaraxas c'est évident wa logique ninka maarta isle Soomaaliya un baa gubanaysa xamar baa gubanaysa oo adsaba badbaadaysa Djibouti waa badbaadaysa Asmara badbaadaysa Hargeysa badbaadaysa waa waalan qaraxa ka socda Muqdisho Dr. Abiy hadina uuna dhageysan uuna aniga fikradahan hayo iyo maskaxda igu jirta iyo waayarnimada igu jirta iyo khabiirnimada igu jirta aan garanayo halkay wax ka socdaan iyo siday wax u socdaan nafteeda waxaan u horayaa dalkayga iyo ummadeeda Soomaaliya abaalkeeda ma iloobay markaan xamar ku noolaana si boqortooyo la soo dhaweeyay boosaaso markaan ku noolaana si boqortooyo la soo dhaweeyay ilaahu naxariistay saaxiibkay in magaciisi Cabdillah Yusuf iyo ilaahu naxariistay Maxamed Siyaad Bare madaxweynihii dhammaantoodba si boqornimo ii soo dhaweeyay يكي دولة دولة لكن سؤال السويدين حويان أبي إمكو صوغلي دكتور أبي إمكو صوغلي لكن تي بي ألفتو إي بي أرديفتو ملا زناوي يمجيستها إلى مريم انت بقى نيجو ويجور وريجاين واي maxaa runta looga baxsanayaa aniga boqolaal baa ila mid oo fikirkan ku jiro wala garanaysa oo nadiifa dadka nadiifta iyo ragga nadiifta maxaa loo nacayaa maxaa loo dilayaa maxaa buush loo gelinayaa why maxaa 300 400 500 oo qof maalin walba Soomaaliya dhimashada Soomaaliya waxay socotaa 3 milyan bay socotaa ku dhawaad iska daaya inta dhaawac iska daaya inta waalata iska daaya dhulka inta baaba iska daaya waa billions and billions dollars soddon sanadood buu dagaalkaas socdaa aan la garanaynin madax iyo mijo aan lahayn laakiin problemku wuxuu ka taagan yahay anu Soomaaliya waan jecelahay Ethiopia waan jecelahay Djibouti waan jecelahay Eritrea waan jecelahay laakiin Abiy halkuu wax ka wado iyo siduu wax u wado walow wax badan uu qabtay laakiin wax badan ma suluugaya wax badan yaan suluugaya marka waxa weeyaan Abiy haddii uu daacad yahay Nobel Prize kan uu qaateen aan dhowr jeer ku hambaliyay ayna hayn raggan Europeanku ayna maaragtay ayna sun ayna uga dhigayn iska inta badan rag badan oo Nobel Prize la siiyay oo daaqada ka baxay boqolaal baa jira marka isagoo sanad iyo xogaa jooga uu Nobel Prize uu ku qaatay waa wax cajiib waa wax Afrika aan weligeed ka dhicin adduunkaba ka dhicin nin madaragtay 1 year and something jooga oo Nobel Prize qaatay laba mid buu noqonayaa
in nobel baraiska lagu dilayo oo tahay maaragtay macasalaamihiisii waa mid iyo inuu ninkan yahay maaragtay karaamad cirka ka timiday oo ilaahay keenay oo yahay nin geniusa un génie waa genius oo afrika ay u baahan tahay nasiibka ay yeeshana afrika uu ku dabaali karo laakiin ayuu u baahan yahay doctor abi keligii ma qaban karo wax ma qaban karo farmaajo keligii ma qaban karo daahir xasan khayr wax ma qaban karaan marka wuxuu u baahan yahay abiye iyo farmaajo waxay u baahan yihiin rag dalka iyo ummadda jecel oo nadiifa aan dowladna ka dambayn taa maxaan uga leeyahay anigu maanta maraykan saaxiib baan leeyahay faransiiska saaxiib baan leeyahay china ismaba naqaanin russiana isma naqaanin waa mid carabaha maxaan garanayaa waxaan garanaya carabaha maaragtay dal baan garanaya oo keliyaati waa imiraadka iyakana saaxiib baan leeyahay carab kaloon garanaya ma jiro waa mid africa dalal badan oon garanaya jira west africada oo dhan wax badan baan ka garanayaa laakiin maxaan taa dan oga leeyahay waxaan yahay element faransiisku muxuu iraa incontrolable aba element maxaa la iraa electron libre waxa weeyaan waa nin aan maaragtay uu faransiiska maxaa lagu oran karaa kinapat casrol casrol waxay ka dhanta maaragtay nin maaragtay meel fish uu kaga jiro oo gudaafada melihi anigu 43 sanadood ee dalka la sheegaya Djibouti la sheegay inuu halgamayo nolosheedii oo dhan qaatay ya maalin kaleeta koob shaaka ma nacbin weligii Djibouti ma shaqeyn anaa shaqaystay anaa shirkada dhisay anoo bilaa lacaga aan wax abuuray xoolahaygii iyo dalkaygii iyo waxaan qabtayba waa la baabi'iyey tiilo Djibouti markaan uga soo baxay banaankan wax ku dhisay Dubai waxaan ku dhisay waa la baabi'iyey faransiiskan shirkad ka sameeyey Strasbourg waa la baabi'iyey baanankii laga xidhay waxa weyn dagaalka lagu wado hadday faransiis tahay iyo hadday Djibouti tahay mid baa laygala dagaaltamay inuu suldaan cabdalla dabarkaal inuu lacag helin inuu lacag gacanta soo gelin haddana waanigaa nool alxamdulilah rabbil caalamiin waanigaa wejigeeda arkaysiin waan quruxsanahay 20 jir baan ahay waan ordayaa waxaan maaragtay aan programkayga igu jira maaragtay Djibouti markaan ka yara seexdo in hadda waanaan maaragtay aan nafteedan aan ka fikiraa deed gabar yaroo maaragtay 30 jira inaan iska guursado maaragtay madaxa salaxdo warniga waa daashay maaragtay kaalimka seexo oo iska naso on sheekada maaragtay Ismaaciil Umar Geeliyo iyo Cafar iyo Ciise baan ka baxo iyo Ethiopia waa mid alxamdulilah rabbil caalamiin taa waxaan uga jeedaa markaan ka soo baxno in serious u hadlayno waxa weeyaan abiye wuu ii baahan yahay marun misabeen abiye aniga wuu ii baahan yahay wallahi billahi tallahi baan ku dhaaranay abiye aniga wuu ii baahan yahay waalina ma aan tut modesty anigu iskama hadlay durmaanimo qoray hadalkaygu wuxuu banaanka u soo baxayaa waxa weeyaan in badan baan maaragtay aan hoosaan aan wax dhiibay oon hoosaan wax qoray ood moodaa in maaragtay abiye laftigiisaba lagu fadhiyaba oo leeyahay suldaan dabarkaale waa khatar weeyaan ile dangereux naga daa ninkaas ibaabkiisa nagu furina laakiin anu baan u sheegayaa doctor abiye iyo farmaajo iyo ka ii baahan aniga wallahi baan igu dhaartay soo magac ilaahay ma wallahi baan igu dhaartay doctor abiye hadduu 2 cisho 3 cisho ii fasaxo inaan Ethiopia iman karo Ethiopia aan tagama doonayay oon halkaas maaragtay aan problem aan ka abuuro Djibouti iyo maaragtay isaga inuu Cumar uu og yahay ninka kaliya hata uu ka baqanayo ee uu ka seexan kari laayahay ya waa suldaan cabdalla dabarkaale suldaan cabdalla dabarkaale why
بس إنه عمر وان قرنايا إنه عمر يا خضر أبيسو مدح إلى ميجو يان قرنايا وحميش جودن عروتنا إلى الدولة السوق الشيء وزيرة كل شيء دنا عقدك عروتاس دنا عقدك أنا يمتر سنة لكن from إلياس دوالي يوسف دوالي يوحك لم يضع يكسر رأيه الدولة كل جرة دمانتو one by one بان وقرنايا سيدي أفكرايان سيدي أسعدان waxay sameynayaan qorshahay wataan maskaxdooda oo dhan waa markana iyo dawladaha ka dambeeya waa khatar waxaan ku hadlayo waa khatar waa mid oo waa mid laakiin samid baa sii jirta faransiisku maanta aniga wii baahan yahay maraykanku wii baahan yahay muxuu igu baahan yahay dee Djibouti inay gubata hadday doonayaan ha sii wadaan Djibouti haddii ilaahay u qoro ay iyaguna ka dambeeyaan ay faraha ka qaadeen inaa aniga hore nagu sheegay intuu China soo gelin meesha Maraykan iyo Faransiis baa Djibouti joogay ibaabka way xiri lahaayeen warniyow Ismaaciil Margalow waxaa doonaysa anaka na weydii Djibouti anaka ka dhigayna Hong Kong Singapore anaka ka dhigayna laakiin China ka bax way ka aamuseen waxaad moodaa inay Greenland siiyeen imankay soo toosan wili Allah China Chongqing il est tard d'une manière ou d'une autre ha waqti uu dhacay marka taa diraadeed waa in wax laga gaaraa waa in dabkan ka socda Djibouti dabkan ka socda maartay Xamar dabkan ka socda maartay Somaliland dabkan ka socda maartay Ethiopia dabkan ka socda maartay Eritrea waa in la joojiyaa haddaan la doonayn in badda cas badal madab inay gubato midar baan ii sheegaya Djibouti iyo geeskan hadduu gubto ilaahay naguma keene horta maraakiibta badda cas way istaagayaan maxay isku taagayaan maanta waxay isku taagayaan waxa weyn mar haddii maartay zoonka cafartoo dhan la wala dogo from Tumasawa from Port Sudan haddii ay halkaas faraha dawladuhu ka baxaan ina waxaad ogaatiin Djibouti hadday gubato Ethiopia hadday gubato Soomaaliya hadday gubato Eritrea hore ka gubanaysaa waa mid marka maxaa dhacaya waxaa dhacaya bayradkii Indonesian ka socday ee Soomaalida ciyaar buu noqonayaa macnaheedu waxa weeyaan markab dambe oo maartay maraakiibta maartay badalmada markay soo marayaan 10 ma gaadhiso 5-6 bay saa isku daba maraan laakiin balac ma mari karaan oo khatar bay ku jiraan marka meeshu way yar tahay marka taa maxaan uga jeedaa macnaheedu waa very easy waa très important in halkaas la gubi karo markab kastoo soo maraya macnaheedu waxa weeyaan instability ka dhalan karaan ay sheegaya waa waxa inuu Cumar uu dadka kaga cabsiinayo waa waxyaalaha sheekooyinka uu dhiibayo aniguna aan garanayo macnaheedu waxa weeyaan badda cas meeshay canfartu fadhido farahay ka bixi kartaa faraha hadday ka baxdo macnaheedu waxa weeyaan terroriska adduunka oo dhan hadday ISIS noqoto hadday alqaacida noqoto hadday noqoto maartay futabiciid al-shabaab ilmaadeerood iyo adeerood iyo edooyinkood meesha hadday soo fadhiistaan waayo markabka kaliya hatay halkaa mari kara wax kale looma baahno doon yaroo intan leeg oo wax lagu rakibo yaa markab kastaba qarxinaysa ina meeshu ma dheera Yamanta iyo madartay Djibouti iyo Eritrea iyo Sudan markabta meesha mareen ma yara ma weyna oo meel dheer oo badweyne ma jirto waa deegaan yar oo kooban macnaheedu waxa weeyaan waa très important in halkaas ay ka dilaacday ka qaraxdo ya wax faraha ka baxaya marka sidaa daraadeed waa ololka socda dabka madaxeena ku taagan ee korkeena saaran ilaahay waxaan ka barin naga hayo reer Djibouti xaggee tagayaan xaggee haystaan
ma jirto. marka walaalayaal hadalladeeda gaarsiiya. doctor Abiy, Farmaajo, xasan khayre, ku dar maaragtay madaxweynaha Eritrea Isayaas Afwerki oo isaguna maaragtay nin walaalkay oo saaxiibkaya oon aqoon dheer u leh Eritrean Liberation Front maaragtay xamar wala joognay. maanta aniga Abiy wuu ii baahan yahay inaan kala shaqeeyo nabadda geeska, inaan kala shaqeeyo stabilityga maaragtay Djibouti, stabilityga Soomaaliya, stabilityga Eritrea. aniga waxa weeyaan maanta ilaahay ka sokow waan isku baahannahay, laakiin isagaa ii baahan. anuu shakhsi baanahay, shakhsi galaataanahay, laakiin isagu mas-uuliyad culus buu haystaa. laakiin ayuu u baahan yahay rag rugcadaaya, rag waaye araga, rag madaragtay khabiir ku ah xaggay xadhkaha iyo sheekadu ay ka socoto fahmaya, miiska waxaa loo soo dhigo kaartada fahmaya, garanaya. ya taas alxamdulilah rabbilcaalamiin anigu maanta qoontoodii waan leh. dalna waan maamuli karaa, cadowna waan ka celin karaa, dalna waan dejin karaa, qorshaheediina waan hayaa. isma qarinaya anigu qorshihii nabadda waan hayaa. anigu nabadu socod baan ahay. anigu waxaan ahay nabadu socod. ummaddeeda iyo dalkayga iyo deegaankayga. Djibouti haddaan badbaadiyo Ethiopia way badbaadi. Ethiopia haddaan badbaadiyo Djibouti way badbaadi. Djibouti Ethiopia hadday nabad noqdaan Soomaaliyana nabad bay noqon. Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti hadday nabad noqoto Eritrea nabad bay noqon. c'est pas compliqué. waa clair and net. waxaygu wuu cad yahay. marka walaalayaal ummadda reer Djibouti waanu sheegaya ya bal kubaddaan eegno. China xagga laisla maro. laakiin anugu soo waan ii sheegay China halka la moodayay inuu cumar ciyaar uu ka dhiganayo xaar buu dhex fadhiyaa. Abubakar kani kale dikada joogana xaar buu dhex fadhiyaa. isoo noolaa meerd total. laakiin problemku wuxuu weyn annakaygina maaragtay qurun buu na geliyey. annakaygina qurun buu na geliyey. marka caawa intaasaan ku soo koobayaa. ujeeddadan kalaha waan iga sheegay waana mid cabdiraxmaan boore Djibouti hadduu soo galo dubay waa inuu gacanta ku wataa. boorsada dubay waa inuu ku dhex jiraa. isagoo hadduu hoosta ku watana waa inuu boorsada kadhacami ku wataa oo qorshaas horaan u macneeyey. waa mid. laakiin sidan xaaladda u arkayo iyo analyskan ka qaaday, informationkan ka helayo Djibouti iyo waxyaalaha lagu heshiiyey waa been ku raac. Chinana qofka moodaya in saas uu inuu cumar geel uu ku tuurayo. China waxaan leenahay Chinow bal ummadda reer Djibouti waxba kuguma samayne. inuu cumar geelle iyo maafiyadiisa wax kugu samaysay. kala saar. dowladda China waxaan ka codsanayaa iyadoo si fiican ii dhegaysanaysa oon ogahay madarata in loo turjumayo oo rag haysato u turjumaya. waxaan China u sheegayaa on leh ummadda reer Djibouti waa masaakiin, waa dad maaragtay masaakiina, waa dad naftii la dhimanaya. kinaacadii bay iska celin kari laayiin, biyii bay iska celin kari laayiin, waxay cunaan bayna haysan, meelay seexdaan bayna haysan. waa dad nafti ilaahay uu ku daayey oo laakiin dadkan madaxda eed hawsha aad la gashay way baabi'iyeen. ilaahay ha ka qabtee. marka China mar labaad baan kugu celinayaa, ne mélange pas le peuple de Djibouti iyo Ismaaciil Cumar Geliye maafiyadiisa. waana mid baan kugu celinayaa, ummadda reer Djibouti China ma nacabsana, kaama soo horjeedna. Afrika waxaad u qabanaysa waan arkaynaa. indhahaygu ma xidhna. Afrika waxaad u qabatay waan arkaynaa. annaka waxaad noo qabatay waan arkaynaa. laakiin raggeedii maad helin. tuugin baad ku dhacday. tuugintii baad kuu fikiraysa. anigu khasuusan sultaan cabdulla dabarkaali maraykan, faransiis, yurub, ruushia, carab saaxiib baan leeyahay. kamana soo horjeedi. dhinacna maaragtay siyaasi baan ahay oo siyaasadda waxbaan ka ogahay. dhinac nin ganacsataan yahay oo wax abuura.
marka macnaatu waxa weeyaan labadaba waan arkayaa marka laakiin adigu hanugu khaldamin inuu cumar dartii iyo raggaas doonaya inay meesha kaa kiciyaan annaka hanugu galaafin oo nagu gubin waa mid wax la had weji la had sababto waxa weeyaan ummadda Jabuuti way ku arkaysaa Afrika way ku arkaysaa Ethiopia way ku daawanaysaa Soomaaliya way ku daawanaysaa Jabuuti haddaad gubtid Afrika waad ka baxaysaa warcad Jabuuti haddaad gubtid wadannaka nu gubtid Afrika waad ka baxaysaa laakiin hana gubin waan kaa codsanaynaa raggii ku khaymay ragga maarta qorshaha kuu wada ee adiga god ku gelinaya iska celi waan kuu fasaxnay annakana danbay nootay wassalaamu calaykum walaalayaal mid yar baan nii sheegaya oon dhowrkanaaba inaan ka hadal waa ninka walaalkee saaxiibkee ka dhacmi meelaha interviewda maara ka dhiidhiibaya ee kule ninka sultaan cabdalle dabarkaale waa mucaarid buu igu yahay oo mucaaridka aniga isaga maaha waxaa ka dambeeya ismaaciil umar geelaa ka dambeeya sds ka dambeysa xasan madow baa ka dambeeya ka dhacmi baa maarata afcanfar ugu sheekeynaya meelaha interviewda aniga waxay ku kacsan aniga maarata idhooqeynaya sds ka dambeysa anigu heshiis lama wadi ismaaciil umar geele heshiis lama wadi anigu waan ka soo horjeedaa ismaaciil umar geele lamana heshinay laakiin wuxuu ku daray baldhegeysta ilahay baa nagu dhaariyay wuxuu ku daray afcanfartaas uu interviewga dhiibayay oo laii turjumoon maarata si fiican dhegeystay ya wuxuu ku daray wuxuu yiri negotiation waan la negosiyanaynaa waxaan kula negosiyanaynaa inuu meesha ka baxo transition baan rabnaa arag sheekada waxa weyn transition baan rabnaa waa macaato tii madaragtay cabdiraxmaan boore iyo wiilkii saaxiibkay ahaa maarka caynaan ula transition waa meesha jirto waan qabsanay meesha iyo daahir axmed farax ole isaguna war dalkaan gacanta qabano iyo ka dhacami oo le aniga dagaalka laygu wado madaragtay lagu dhooqeynayo waxa weeyaan waa sds Jabuuti macnaheedu waxa weeyaan sultaan cabdalle dabarkaale sds u shaqeeyaa waka in daafacaadu isku daafacaya maxamed ka dhacmi wakaas sultaan cabdalle dabarkaale xasan madow buu shaqeeyaa oo sds iyo cafarta ugu sheekeeyaa cafartii buu iska dhigaya malaa'ig dhinaca kalena wuxuu ku leeyahay waxaan rabnaa ya in waxa la yiraahdo madaragtay transition afka galaad marka la macnayo transition maxay ka dhigantay macnaheedu waa nin meesha jooga oo meesha kursigii waa inuu qolo kale ku bedelaa okay macnaheedu waxa weeyaan heshiiska waa inuu dhacaadeed inaad heshiis baa meeshii lasoo wadama markaad leedahay ka dhacamiyow transition yaan nuku aan cumar ka doonaynaa ee lama heshiinayni hadalkaas isma galaayadeed waxaan u malayaa kii interview kaa qaaday cafre si fiican kuma fahmin hadduu ku fahmi laha wuxuu korin laha maxay ka dhigantay transition qu'est-ce que tu veux dire par là markaad leedahay inuu cumar geele lama heshiinayay inuu cumar geele waan ka soo horjeedaa laakiin transition baan doonaynaa maxaad uga jeedaa parce que qui dit transition veut dire automatiquement une négociation c'est vraiment assez clair. Il faut pas jouer à prendre faut pas prendre les gens pour des couillons, des imbéciles. Si c'est vrai que certains affaires, tu les prends pour des cons, pour des stupides, mais tous les affaires ne sont pas aussi cons. Peut-être que ce jeune homme-là que tu étais en interview avec lui, Mohamed Kadami, peut-être qu'il n'a pas compris le mot de transition. Parce que quand on parle de transition, automatiquement, il y a le mot négociation. Transition égale à négociation. Négociation avec qui? Avec Ismaël Merguele. Mon œil. Transition avec Abdurrahman Boré. Transition avec DAF. Transition avec Ismaël Merguele. Tout ça, c'est du cinéma. Mais là, t'as un castor DAF, t'as un gaz. Halka kum anayi. Anu wadi marti midba on kudra yaba. Ya? Aniga Xasan Madow la weydiyo. Hadduu ba shaqay sinayo. Xasan Madow on kula shaqeynayay. Ma ogolanaysaa? Xasan Madow aniga ma ogolaanayo. Ya? Xasan Madow ma ogolaanayo. Way garanayaa. Ismaaciil Margelena way garanayaa. Khadar Habeesna way garanaysaa. Marka Xasan Madow inuu shaqaysiyo anaaba oranay abti maartay shaqadaysii oo dad maartay ya in shaqada balisi maartay abti waxbana lacagaysiina bilaash baan kugu shaqeynaya marka maxamed ka dhacami sheeka kala keen
sheekadaas maaragtay casagale markii la joogay way ninkii lahaa maaragtay berigii fruudka cabdulla dabarkaale ismaaciil cumar geelu u shaqeeyaa waa nin ciisa oo ciisa dhalo abtaaladii buu jecel yahay marka waa nin maaragtay dhinaca maaragtay abtaaladii buu u janjeeraa marka ma garanayno noke cabdulla dabarkaale ha naga saaro ha naga qabto waxaad samayseen waad garanaysaa casageela fadhigii maaragtay markii dowladda lagu dhisaayo maaragtay fruudka waad garanaysaa iyo wixii aad ka tiraadeen maaragtay ugura kifle waad garanaysiin anna waan garanaya ilmaadareena markaas diyaar bay hayeen ilmaadareday ilaa iyo maaragtay xasan diyaar bay hayeen inay meesha dagaal ka ridaan laakiin anaa joojiyey ilmaadareday oo yidhi maya anaa keligeeya hadday raggan maaragtay ay daacad yihiin anaa baxaya anaa aadisoo tagaya ee waxaad dagaal samaynaysin ma jiro waxaad canfar isku dilaysiinna ma jirto canfartu ha wadaan halgankooga halgankaas raggaas ugure kifle cali geele jomari iyo kadhacami ha wadaan iyo axmed diini waxay doonanba ha wadaan aniga hay soo gelinin aniga mar hadday barnaamijka brogabandkaas ay halkaa ka wadeen waan fahmaya laakiin waan ka baxaya laakiin ninga dartay cabdulla dabarkaalaha maaragtay canfartii isku diray oo canfartii maaragtay halkaa bay ku kala dhinteen iga daaya halkaa baan kaga baxay taana ayaa ka dambeeyey de waa kadhacami iyo gruubkiisa oo hadday jeerba sheekada soo saara anigu nadiif baanahay anigu waan fiicanahay sdsta maaragtay daba socota sdsta lai soo dira ragga canfarta iyo kani kale cabdulla dabarkaale iyo burhaan iyo raggaas oo dhan iyo raggaas oo dhan waxaa ka dambeeya sds oo sheekadaas way dhamaatay wax kale la kaalay laakiin su-aal baan isweydiinayaa maxamed kadhacamiyo dhowr bilood ka hor maraan wala hadalnay intuu xadhigeenu kala go-in habeen baad i weydiisood iga tiri ya warniyahu cabdulla dabarkaalow dahabshiil holand may ku taallaa adreeskeedu waa halkee haddii kale baris dahabshiil halkee ku taallaa su-aashaa waan qoslay maxamed kadhacamiyow su-aashaa waan qoslay markaad i weydiisay dahabshiil mar haddaanad garanayn holand halkay ku taallo ood aniga i weydiisay ood markii dambana iga tiri marka cabdallow baris dahabshiil halkay ku taallaa niyow arrintaas maalintii waan qoslay waan isweydiiyey laakiin waan dabagalay oo baaritaan dheer yaan ku sameeyey marka saaxiibow maxamed kadhacami iyo dahabshiil maxaa isku keenay keskiya kale loliya maxamed kadhacami iyo dahabshiil holand iyo dahabshiil paris ou bien dahabshiil en france ou bien dahabshiil astafurlah waxaan kaa iloobay midda kalena waxaad weydiisay markii saddexaadna waxaad iga tiri dahabshiil branch may ku leedahay bruxelles su-aal meesha taala ha maxamed kadhacami muxuu ka doondoonayaa dahabshiil bruxelles dahabshiil holand iyo dahabshiil paris anigu waan dabagalay baaritaanna waan ku sameeyey wax badanna waa iga soo baxday marka maxamedow bal ummadda u macnee adiga iyo dahabshiil maxaa isku kin xidhay maxamed kadhacami iyo dahabshiil maxaa isku xidhay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaa baan kaga baxay walaal waad mahadsantihiin waxaan maaragtay ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay indhaha nii furo maskaxda nii furo waxaan ilaahay ka baryayaa maaragtay inuu baaqayga iyo hadalkaygu inuu gaadhay prime ministerka maaragtay ethiopia doctor abiy axmed بريزانك الصوماليا فرماجو حسن خير رئيس الوزراء iyo waliba waxaan halka baaqas aan u sii gudbinaya ninka saaxiibka walaalkay wariyaaga oo isaguna aad ugu maaragtay takhalusay aadna ugu jira maaragtay arrimaha maaragtay Soomaaliya iyo arrimaha maaragtay dhibaatada Soomaaliya ka taagan waa Daahir Cali Sow isagana waxaan leeyahay Daahir Cali Sow waan ku salaamay saaxiib sanad wacan baan ku leeyahay marka baaqayga iga gaarsiiya una gudbiya dowladahaas iyo ummadaas oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay nabadaan igu soo dabaalo laakiin anigu had iyo jeer waxaan ahay ninka madaragtay niyo halgamaya nabadiina iyo walaalnimadiina iyo mustaqbalka Soomaaliya Ethiopia Djibouti Eritrea inuu gacan nabada u ka dhaliyo wabillahi tawfiiq waad mahadsantiin salaamu calaykum iyo habeen wanaagsan
inta halkan ku jirtana aad baad u mahadsantihiin sharmaarka casood waan ku salaamay abti vanderbrook salaamu calaykum samira soo dhowaada insha allah dhammaantiin oo dhan waan salaamay ilaahay ilaahay cadowgeena ilaahay ajabiyo axmed cabaas axmed ciid waan ku salaamay abti aad baad u mahadsantihiin ducadiina ilaahay haya aqbalo ducadiina ii badiya isoo garab joogsada gacan qabta waxa weeyaan halkan caawa ka hadlayo waxaan nolosheedii oo dhan ba aan kaamil ka dhigay sidii aan ummadda reer jabuuti aan isu wada badbaadin laha si aan canfar iyo soomaali iyo ciise isaaq gadabursi iyo carab si aan iskugu keeni laha yaan intaasoo dhan ba aan maarata u halgamaya waxaan nii sheegayaa u duceeya reerkayga u duceeya caruurteeda ilaahay maaragtay iyakana maaragtay caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqaas iyo 5 sanadood caruurteeda maan arag caruurteedu France bay joogaan ya 5 sanadood caruurteeda maan arag marka igu duceeya caruurteeda ilaahay inuu maaragtay aabahoodna maaragtay si nabad qaba isku arkaan ilaahayna maaragtay aabahoodna uu garab galo cadowgiisana uu jabiyo waa billahi tawfiiq alxamdulilah rabbil caalamiin sanad wacan sanad khayr leh ilaahay jabuuti hadaayo ummadda reer jabuuti ha noolaato nabadda iyo khayrku ilaahay ha waarto ilaahay ummaddaas ku keeno intaas jecel cadowga iyo inta xunna ilaahay naga qabto dulmigaas dowladda jabuuti ay wado ummadda jabuuti ummadda etoobiya ummadda eritrea ummadda soomaaliya ilaahayna ka qabto waa billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaarsiiya walaal meel kasta aad u gaarsiiya leesh hadalladeedu daway ku socdaan waxbayna maaragtay tarayaan waxbay tan iskama hadlaayey hadal nooma soo fadhiisan wax weeyaan khayr baa ku jira waa billahi tawfiiq assalaamu calaykum waad mahadsantihiin habeen wanaagsan dhammaantiin waxaan leeyahay habeen khayr leh wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu thank you very much